sanad guuraha 42aad ee ka soo wareegatay gobonimada waddanka Jamhuuriyadda Djibouti ay ka qaateen gumeystii Faransiiska ayaa waxaa lagu qabtay duleedka caasimadda dalka Jamhuuriyadda Djibouti waxaa xuska sanad guurahaasi ka soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele markii madaxweynuhu goobtaasi soo gaaray ayaa waxaa halka ku soo dhaweeyay wasiirka difaaca ee dalka Djibouti iyo waliba taliyaha sare ciidamada gaashaandhigga dalka Djibouti inta kadib wuxuu madaxweynuhu salaan ka qaatay ciidamada baanbayda ee dalka Jamhuuriyadda gaadka ciyaarka ciidamada ayaa ugu horeyn waxaa bilaabay ciidamada baanbayda ee dalka Djibouti ciidamada kala duwan cirka ciidanka dhulka ciidamada badda iyo waliba qaybaha kale ee ciidamada jandarmariga iyo kuwa booliiska ay goobtaasi si weyn u soo mareen waxaana sidoo kale ku weheliyay ciidamada kala duwan ee gaashaandhigga ee dalka Djibouti iyagoo waxaa iminka soo gabagaboobaya qaybihii ugu dambeeyay ee baabuurtii kala duwan ee ciidamada kuwaas oo ah gaadiidka gaashaaban sida aad arkaysaanba waxaan xafladani ay tahay mid si weyn shacbiga Jamhuuriyadda Djibouti la faahantoodu ay maanta ugu farxeen horumarka dhinacyada kala duwan ee ay gaareen ciidamada xoogga dalka Jamhuuriyadda Djibouti dabaldegan oo ahaa mid aad u ballaaran ayaa waxaa sidoo kale loo soo dhaqaaqay dhinaca madaxtooyada dalka Jamhuuriyadda Djibouti halkaas oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee waddanka Jamhuuriyadda Djibouti bulshada ku nool xaflad ballaaran oo lagu qabtay qasriga madaxtooyada ee dalka Djibouti madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti oo goobtaasi hadal ka jeediyay ayaa waxa uu yiri maanta waa maalintii aan xorownay way maanta waa maalintii aan gumeysiga waddanka ka saarnay way maanta waa maalintii geedi socodkii gobonimo doonka iyo halaagii iyo dhibtii iyo dhimashadii iyo siligii aan ku xorownay wey maalintii aan kow odhan doono geedi socodkii adkaynta qarannimada adkaynta midnimada qaranka ku dhaqaaqa gobonnimada dhaqaale iyo tii dhaqanka waxaa sidoo kale xafladani ka soo qayb galay wafdi ka socday Jamhuuriyadda Soomaaliya gaar ahaan maamul goboleedka Puntland madaxweyne ku-xigeenkeeda iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Puntland oo iyagu ka qayb qaadanayay xafladaasi aad iyo aad buu u sareeyaa waa la faraxsan aad u faraxsantiin maan u faraxsanahay iyo si kasi weynba shacbiga reer Djibouti waxaan lahaa farxadda iyo reereynta iyo horumarka iyo barwaaqada ku sii wada nabadgelyada ilaaliya isku midna noqda aad baad u mahadsantiin Mikael Cabdirashiid Bare raadiyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed